إذا عاصمة دولة جمهورية الصومال maanta lagu xusay xuska maalinta macalinka adduunka taasoo sanad walba waqtigan oo kala laga xuso dunida jamhuuriyadda Soomaaliland oo kamid ah wadamada sida weyn maanta looga xusay ayaa waxa madal ballaaran oo lagu qabtay hoteelka Dhoolayare ee magaalada Hargeysa ka qayb galay xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale taasoo lagu maamuusay macallimiinta wadanka مناسبة ويسوع قاسمين ورك معلمين الصومال لا يوحى وقورنا قاسي هذا الجديد قدوميها ورك معلمين تا قدوميها كحيجانك حوجيها قدوميها معلمين تا جامعها يصيروا كلا قار كميدا معلمين تيجسوا غيب قلاي لما أنتوا نوحى أي همبلية يبقادن الدرين معلمين الصومال لان معلمين عام سيانو وشنو ويننا معلمين تنا هدفك يوجدنا يوحقبك بدن دلك ولينا وموجنا يجي عرضه يحاسس كذا يوم نتكلم عليهم بقى وحن كسرنا نصران نسان كمان وحنا نسرق سرقس كوكارا وش برافو معلنكو runtii kaalin muhiim inoogu jira nusuus badanna runtii ay ku soo aroortay xadiiskeeni tarmadu weerinaya muxuu haayay العلماء ورثة الأنبياء نبي النبي عليه الصلاة والسلام العلماء أما معلنكو يعني وضحالكي ماركتي وحو هي أنبياء معلنكو وهالبولها هي أبوعدا أمت كستا أو جرتا وحالي كحرنتها أمت داس حالكاي معلنكي ذي كتاغتها هي سيدة معلنكي ذا يولاد قنتو هي ماشا يدكتو هي أمتها هرمركي ذو قارسي سيهاي runtii marka macalinku waa producerka waa qofka soo saaraya xildhibaankiiba soo saaraya waa qofka soo saara waa qofka dhakhtarka soo saaraya ka siyaasiga soo saaraya waa ka macalinka soo saaraya waa iftiinka ummadda runtii marka inaynu weyneyno oo aan xusno waa arrin aad iyo aad u qiimo badan aan leenahay habaliyo dhammaan macallimiinta xaasaskooda iyo caruurtooda iyo inta waxbareenba iyo anaga laftoodaba maalinta macallimiinta qadarin weyn ayayna u haysaa urka macallimiinta amba urka shaqaalaha guud ahaan ujeedadiisu waxa weeyaan inaynu midayno cudurka shaqaalaha guud ahaan dalkeena Soomaaliland bahdu doonaha noqdo ma macallin ha noqdo amba dhakhtar ha noqdo amba injineer ha noqdo amba dhisme ha noqdo xirfad kasta oo qofku yahay shaqaale oo uu shaqeeyo loo shaqeeyo sidoo kale shaqaalaha sidooda u madax bannaan ee nan formalka ah iyaguna waa hor shaqaale geesta kale waxaa halkaasi hadal ka jeediyay xildhibaan Fuad Axmed Diiri oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland isagoona ku bogaadiyay macallimiinta Soomaaliland dadaalkooda iyo juhdiga ay galinayaan sidii ay u soo saari lahaayeen ubad waxbartay oo aniga dareen gaar ay xabaarsan waa maalintii macallinka waa macallinkii adduunka insha Allah hadii ilaahay ilaahdo ay ku salidinayeen macallinkii ugu weynaa alayhi salaatu wasalaam waxaan filayaa inay risaaladii u dhisidno oo haday tahay maadi haday tahay diiniba in waxa weeyaan jahliga ummadda la dagaalamaa وحوي في آخرنا وحي نوص عليا أجر باي نوص عليا معلم ما فعل مهل مقعد وياي هاي قف كستون بيسوي استعجة معلم باصو صاري مركا مقعاس لو حوي